muuqaalkan waa muuqaalkii ugu dambeeyay tiktokerkan oo caan ka ah dunida oo idil iyo wadanka Mareykanka. haddaba sababahan darteeda ayuu ninkan uu isku qaarijiyay iyadoo oo dunida ay si markaa la yaab leh u hadlayso oo social media oo idil ninkan maanta si weyn loo falanqeynayo. waxaan halkan kugula wadaagi doonaa sababihii la yaabka lahaa ee ninkaasi uu isku qaarijiyay iyo xogtiisa oo dhameystiran oo marka ay ku soo gaarto aad madaxa gacanta saaran doonto. muuqaalkan like inoo saar oo aadsan tahay. muuqaalkan idin muuqda waa kii ugu dambeeyay ninkan tiktokerka ee lagu magacaabo Van Video oo dalka Mareykanka caan ka ah. waxaana uu ahaa ninkani 32 sano jir si weyn u isticmaala bartani. hase ahaatee muuqaalkan oo ah kii ugu dambeeyay ayuu soo duubay uuna ku xaqiijiyay sababta uu isku dilayo oo adigana ka yaabin doonta ee talo maxay tahay. markale waxaan ka codsanayaa si meel dheer muuqaalkan uu gaaro inaad u share gareyso asxaab fara badan like-na aad saarto aad ayaad u mahadsan tahay. Van Video ninkan lagu magacaabo waxa uu bartiisa TikTok-ga uu ku haystaa dad kor u dhaafaya 200,000 oo followers. waxa uu ahaa nin dhawaan ku soo biiray aaladani dalka Mareykankana caan kaga noqday muuqaalada muusiga ee originalka ee isaga uu sameysto iyo sidoo kale hadallo madadaalo oo dadka ka qosliya. dadka ku xiran waxay aaminsanaayeen ninkan haddii uu sidan ku sii wado inuu noqon doono kan ugu followerska badan wadanka Mareykanka. hase ahaatee taasi ma aysan dhicin oo waxa ay subaxyada kamida ku baraarugeen muuqaalkan in uu soo geliyo bartiisa uuna markaa arrimo badan kaga hadlo iyadoo muuqaalkanina uu noqday kii ugu dambeeyay ee uu markaa uu isqaarijiyay kadib ama ka hor uu duubo. Van Video muuqaalka waxa uu ku sheegay marka ugu horeysa inuu yahay nin qamrada iyo waxyaalaha daraagiska ah aad u isticmaala taasoo waliba uu ku dhibaateeyo qoyska isaga uu ka dhashay. waxaa kaloo muuqaalkan uu ku sheegay oo ah kii ugu dambeeyay in uu ahaan jiray nin shaqaysta oo runtii madadaaliya caruurta oo iskoolaad ka shaqeeya oo qaybta madadaalada caruurta ugu qornaa. wuxuu kaloo ku sheegay inuu aad markaa uu maskaxdiisa u degtay markii uu ku soo biiray barta TikTok-ga uuna yeeshay daawadayaal isaga follower u ah. waxaana uu sheegay in daawadayaashaas ay ka saacideen in noloshiisa happy uu ku dareemo ama farxad. sidoo kalena gabagabadii waxa uu ku soo gabagabeeyay in aad igu xusuusan doontaan muuqaalkan aan duubanayo uuna noqon doono kan aad maalmo iyo sanado fara badan aad igu hadalhayn doontaan ayuu ku sheegay Van Video muuqaalka uu bartiisa TikTok soo geliyay oo ahaa kii ugu dambeeyay. haddaba sidee wax u dhaceen? Van Video marka uu muuqaalka uu duubo sidaad arkaysaan clipkan waa uu dhaqaaqay. waxaa la aaminsan yahay markii la khulaaseeyay dhaqaaqitaankaas uu dhaqaaqay kadib in ninkaasi uu isdilay oo yacni isdaldalay oo uu isaga naftiisa uu xoog isku dhaafiyay. waxaana dhacday markii ninka uu isdilay in la aado gurigiisa kadibna ninkaasi meedkiisii loo qaaday cisbitaalka. waxaana halkaa lagu xaqiijiyay inuu u geeriyooday isbiimeen uu isagu markaa naftiisa uu isdhaafiyay. walaashiisa Maarta oo barta TikTok-ga soo gelisay muuqaal ayaa iyaduna la wadaagtay dadka social media aadka u taageeri jiray ninkani oo ka naxeen geeridiisa. waxay sheegtay in walaalkeed uu muddo sanado ah uu qabay xanuun dhanka dhimirka ah maadaama nin waalan uu ahaa. waxa uu ku dhaqaaqay bay tiri ficilkan oo ah in marka uu isqaarijiyo isagoo isku dilaya halkan sababtuna waxa ay Maarta ku sheegtay in dadka ay xusuustaan oo qura oo ay dadku hadalhayaan yacni hebel waa uu dhintay darteed si loo hadalhayo oo loo xusuusto ayuu isku qaarijiyay. yacni waxaa jira dad fara badan oo dunida isdileen oo jalayaal iyo dad caana kuwaasoo geeridooda kadib aad dadku runtii uga murwadeen. marka maadaama ninkaan nin waalan u ahaa bay tiri Maarta waxa uu siri haddii aad dhimato oo weliba si yacni aan la filanayn aad isku disho waxa ay dadku noqon doonaan kuwo weligood ku xusuusta. sidoo kalena muuqaalkiisa ayuu ku sheegay Van Video in muuqaalkan kadib dadku xusuusan doonaan ayna hadal hayn doonaan. waxaana dhacday ninkaas inuu isku dilay kaliya taa dadku ha ku ammaanaan ha ku xusuustaan magacaagana maalmaha la wado darteed
ayay maarta waxa ay sidoo kale raacisay inuu ninkan jiranaa oo uu sanado fara badan ka xanuunsanayay dhimirka oo uu ahaa nin waalan maadaama drugs iyo waxyaabo badan uu isticmaalay ee maskaxdiisa saameyn u geysatay. dad badan oo TikTok isticmaala oo caan ah ayaa siyaabo kala duwan uga tacsiyeeyeen. dad badan oo komitiyada muuqaaladiisa galeenna way u tacsiyeeyeen iyaga oo sheegay in ninkan uu ahaa nin cajiib ah oo ka qoslinay wax ka yar muddo aan bil ahayn ku gaaray 100,000 oo runtii follower taas oo ku mutay weeraadeen taalantiga isaga marka uu leeyahay. Van Vidi sababahaas darteed ayuu isku qaarijiyay qoyskii iyo dadkii dhammaan tacsidiisa waa ay ka qayb galeen waxaana markii baaritaan la ogaaday lagu soo gabagabeeyay oo dhaqaatiirtu sheegeen in ninkaasi waalid darteed uu isku qaarijiyay laakiin isaga ayaa mar hore sii dhigay muuqaal oo ah oo uu yiri waa li hadal heen doona taasoo cajiib ku noqotay dad badan oo dunida markaa xoogtiisa ay gaar. haddaba daawade xogta warbixintan iyo muuqaalkanba waa aad daawatay. haddaba qaybta commentiga nagula wadaag aragtidaada ku aadan ninkan oo isku dilay hal i xusuusto oo hal i hadal haayo oo dadku hay amaanaan marka aad dhinto maadaama uu nin waalan ah laakiin dadkuna ay ogeen caan uu ka ah TikTok. sidaad u aragto aragtidaada ku cabir. waxaan kaloo ka codsanaynaa muuqaalka haddii aad like saarin inaad like noo saarto qadar showna follow gareyso si dhawaan aan u gaarno 100,000 oo follower. aad ayaad u mahadsantiin.